Waxa uu ahaa safar qaatay hal maalin, deegaano hoostaga degmooyinka Gurceel iyo Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaan gaarnay si aan uga soo warbixinno xaaladda abaarta iyo jiilaalka daran ee ku habsaday nolosha bulshada reer guuraaga ah. Safarkeenna oo Gurceel ka bilowday, waxaan ku sii marnay deegaanada Dabare, Ceel Qorax iyo Dhagaxyaale, halkaas oo aan uga sii gudubnay deegaanka Goonle oo hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Waxgaradka iyo dhalinyarada Goonle ayaan kulan la qaadanay ka hor inta aysan warbaahinta la wadaagin saameynta abaartu ay ku yeelatay noloshooda. Annagu markaan hadda ka hadalno sida wax yihiin dadka iyo dunyada in la xareeyo in ooda laga qaado waa isku mid. Haddii ooda laga qaado waxay soo daaqdamaysato, haddii la xareeyana waxay daaqdamaysato. Dadkuna dunyada ku noolaay. Intaas markaan uga baxo xoolaha biyo ma haysano. Hadda waxa waaye biyo ratig lagu qaado ama dameer dish lagu qaado lama kala gaaro. Waa duruuf jirta waaye. Ilaahay baa keenay. Ilaahay baana bixi kara. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu madarna siiyo. Jiilaalka waqtigan hadde waxa la yiri nin reer dhiqi jira reer mamuga waqtigan waxa jira waa la ogyahay qof aan la socono ma jirto. Dadku dayrmo uusan arag xooluhu dayrmo arag gugii horena wuu yaraay. Sideedaba hadda xooluhu way iska yaraadeenba. Wax hadda deegaanka Goonle jooga xoolihii hadda cabi jiray saddex markii loo dhigo laba way tagtay meela hartay. Meeshaas marka dadkuna hadda xoolaha ma cuno siyaabo kale oo Ilaahay uu irsaaqada Allah qoray ku nool yahay. Deegaanka Goonle marka abaar baahan baa ka jirta. Ilaahay baana ka qaadi kara. Marka hadde qoftii wax garataana way ogtahay xaaladda sida wax yihiin. Wadanka waxa ka jira colaado, waxa ka jira waqti kulul. Ilaahay baa naga bixi kara. Waxa ka jira soonqaad. Biyo ayaa looga baahan yahay, baad ayaa loo baahan yahay. Ilaahay baa loo sheegtay Ilaahay hana siiyo. Roobku sanadkii dhawaay waa yaraay, sanad korona waa yaraay. Haddana waa mid saddexaad sii dheeri waxa waaye waa roobku meel ay ka daan duruufo jiro awgood sida colaado kale meel sila la aadi kare. Si wanaagsan. Markay ama sanad cunaan ama ay ninka la yiraahdo dhiig leeyahay waa markay leeyihiin iibka kala hadda xoolo naashif waaye xoolo iibkooda waa liitaa wax beecuna carada kama jiraan baawada shirkadana ma yimaadaan suuqna kama furno deegaanka aan joogo. Dhanka kale bulshada Goonle waxa ay codsi u direen cid kasta oo ka qayb qaadan karta in gargaar loo fidiyo, gaar ahaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka Galmudug, hay'adaha samafalka iyo jaaliyadaha deegaanka ka soo jeeda. Meeshan waxaan cabasho uga diraynaa dad baaq uga diraynaa dadkii deegaankan u dhashay oo ama jaaliyada ahay ama xildhibaano ahay oo kursigan ku metela hadduu yahay maamul state iyo hadduu yahay mid federaal. Xildhibaanada ku metela kursiga cayrkoo fure oo dalkan iyo dadkan u dhashay iyo dadka jaaliyadaha u dhashay oo dadkan ka soo jeeda waxaan ka codsanaynaa inay dadkan si degdeg ah gurmad ula soo gaaraan oo dadkan uu daruufaysan yahay. Dadku wuxuu siyaasiyiin iyo ku noqdo dadka uu ku metelaahuna waxa waaye dadkiisu metelaa ummadii kale oo la asaga hayna dadka way ku meteleen oo arkay media qof walba meeshay joogtay ka fiirsataa. Dadkaas marka waxaan leenahay qof walbana dadkeeda asaga ay hoostigi doontaa. Dadka markii xil la rabo bisiyaan la soo aadina waxa la rabaa markii walba loo baahan yahay qofku inay dadkeeda xasto. Xildhibaanada iyo siyaasiyiinta waxaan ka codsaynaa baaq ugu diraynaa dadkooda daruufaysan oo meeshaas jooga hadday yihiin state iyo hadday yihiin federaal inay dadkaas ka soo gaaraan. ummaddu was kaalmayda isu naxariista Ilaahay yiri hadaa isu naxariistan weydin naxariista Ilaahay yiri in loo naxariisto oo walaalnimada nolol kugu naxariisto oo waa u baahanahay. Haddaan hadda weynana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala risqiga suuqayna Ilaahay noo naxariisto. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Galmudug waxay ay dadkaas tawaalada waqtiga hayo kuleylka iyo soonqaadka iyo colaado isugu daran yihiin waxay ay ku taageeri karaan inay nagala soo gaaraan hadday yihiin xildhibaanada gobolka ka soo jeeda, hadday yihiin dowladda Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, hadday yihiin gudoomiyaha degmada Gurceel, dhammaan waxay ay deegaanka ku taageeri karaan waqtiga soonqaadka iyo kuleylka jira u gargaari karaan inay nagala soo gaaraan ka codsayna. Wali waxaan ku guda jirnaa safarkeennan oo aan ugu kurgalaynay xaaladda abaaraha deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle.
gaar ahaan deegaano hoostaga Maxaas, Matabaan iyo Gurceel iyo Ceelbuur isugu jiraan. Marka waxaan joognaa balligan oo la yiraahdo Dhaantoole. Waxaan ku wajahnahay Waxoolayri oo aan rabno halkaas inaan kula kulanno bulshada Goonle ayaa naga dambeeya oo aan ka nimid Goonle kadib waxaan safarkeena ku gaarnay deegaanka Warxoolo oo bulshadeeda ay abaarta u dheer tahay colaad beeleed muddo u dhaxaysa walaalaha ood wadaagta ah ee deegaankaas ku nool. Kuwa Warxoolo baahida ka jirta waa baahi baahasan, waa mid baahi leh, waa mid biyo la'aan leh, waa mid haddii Alla ku roon yahay siyaalahaas oo kala duwan isugu jirta. Xooluhu waa xilli waxay galeen isla dhowr sano aysan helin oo waqtiyaal ku dhaceen oo abaarsadeen oo aad u xun yihiin. Carrada waxaa ka jira baahi xoolaad iyo baahi biyood. Xooluhu daaq ma helaan. Wadanka baahi xoolaad oo dhibaato ka jirta aad ay u cunno yar yihiin. Baahiyaal badan ka jirta. Duurka hadday aadaan mar ay waqtisan yimaadeen, marna ayagoo hadda iska magaciisa yimaadeen. Waxaan baaq u dirayaa adduun weynaha iyo hay'adaha jaaliyadaha Soomaaliyeed aan baaq u diraa inay wax noo qabtaan. Waxay noo qaban karaan, Ilaahay baa wax noo qaban kara. Cabashaan nahay waxaan ka cabanaynaa annagoo ah dad marka hore shacab reer miyiga degan meesha la yiraahdo Warxoolayri waqti dheer oo dhib badan oo abaara ayaan soo daba joogay ayadaasaan horta cabasho ka nahay. Ilaahay ayaan u cabanaynaa marka hore. Ilaahay waxaan ka baryaynaa marka hore inuu abaaraha iyo colaadaba naga dul qaado, noogu bedelo nabad iyo aaran iyo roob. Ilaahay horta taasaan marka hore ka baryaynaa. Ilaahay noo aqbalo ka bacdi waxaan u baahannahay hay'adaha samarfalka oo deeqaha bixiya. waxaan rabnaa wixii ay hayaan waqtiga annagana haysta dartiis inay nooga gargaaraan aysan isha naga dadbin. Sidaasaan ka rabnaa. Abaar dheer oo 3 sano jirsatay iyo colaado waxaasoo dhan isku kaanahay waqtigu si aada ayuu noogu kulul yahay. waxaan rabnaa marka il gaara in la ku fiiriyo aan ka sii jeedin. Sidaasaan codsanaynaa. waxaan nahay annagu markaan Warxoolo leeyahay waxay hoos tagtaa degmada Ceelbuur kana tirsan marka hore Galgaduud hoos taga haddana Ceelbuur degmada Ceelbuur ka sii tirsan. Fariin aan diraynaa maamulka Galgaduud iyo hay'adaha waxaan u diraynaa baaqaasoo ah wixii dad iyo dunya wax la cunaa la la'yahay. wixii la cuni lahaa dunyadii dadku ku dhaqnay waxay cunaan la yihiin, dadkiina hadda habasheen waxay cunaan la yihiin. ugu dambeyntiina Dalmar Sheekh Cali oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Gurceel oo safarkan hogaaminayay ayaa warbaahinta kula hadlay Warxoolo. waxa uu xildhibaanku faahfaahin ka bixiyay xaaladda abaarta ee deegaanadaasi ka jirta. la yiraahdo biyo guduud, waxaan soo marnay Dabarre, waxaan soo marnay Ceel Qorax, waxaan soo marnay Dhagaxyaale, waxaan soo marnay Tuulo Ooman, waxaan soo marnay Ceel Biir, waxaan soo marnay Xarar Guure, waxaan soo marnay Goonle, waxaan soo marnay Dhaantoole, waxaan soo marnay Luufdaaji, waxaan soo marnay Warxoolo. hadda waxaan ka hadlaynaa oo joognaa oo meesha hadda aan taaganahay waa Warxoolayri oo ah deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Ceelbuur oo ah waliba dhinaca galbeed oo Ceelbuur isla markaana dhinaca koonfureed Gurceel. runtii waxaan halkaan u nimid oo safarka inta laga soo garnay ayuu bir Ramadaan lagu jiro inaan dadkanaga u adeegno u noqono survivor akhbaartooda aan qaadno baahidooda aan tabino irdaha ugu muhiimsan iyo meelaha ay tahay in loo garaaco aan u garaacno inaan u adeegno. runtii mas'uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhammaantood ama deegaankan ku matala isteedka ama ku matala degmo ama ku matala federaal waxaan u baaqaa inay dadkooda maanta wax la soo gaaraan. waa dadkii aad matalayseen, waa dadkii in doortay, waa dadkaad wax u qaba lahaydeen, waa dadkii aad mas'uuliyadda u qaadeen. waxaan idin rajeynayaa idinka inaad baaqaas ka soo jawaabtaan. Dalmar Sheekh Cali ayaa dhanka kale codsi u diray guud ahaan dadka muslimiinta ah, dowladda federaalka, tan Galmudug, jaaliyadaha iyo hay'adaha samafalka, isaga oo cod dheer codsi iyo baaq ugu jeediyay in si degdeg ah wax looga qabto xaaladda adag ee ay sababtay abaarta saameynta xooggan ku yeelatay bulshada. ay la soo gaarto sidoo kale guddiga abaaraha ee degmada Gurceel oo runtii hadda deegaan ahaan noo xiga ayagana waxaan ugu baaqaa inay dadkan ilgooni ku fiiriyaan xaaladooda ka warhayaan waxyaabaha xisaabta ay ku daraan maada inkastoo Ceelbuur tahay laakiin dadku waa la isla degaa deegaanka waa la isla leeyahay dadku waa isku wada mid baahida meel walba ay ka jirtaa dadkan deegaanka ka degan waa Ceelbuur
laakiin nolol ahaan iyo deegaan ahaan waxay ku tiirsan yihiin Gurceel marka guddigaasna waxaan ugu baaqayaa oo maamulka degmada Gurceel oo sameeyey aad aan uga mahadcelinahay runtii maamulka inuu sameeyo guddigaas iyo maamulka Gurceel guud ahaan ayagana waxaan ugu baaqaa inay ayagana gacantooda iyo jawaabtooda iyo mas'uuliyaddooda ay qaataan doorkooda ay qaataan ganacsato ay doorkooda qaato dhalinyaradu ay doorkooda qaato gabdhuhu ay doorkooda qaataan qurba joogta ay doorkooda qaadato hay'adaha samafalku hadday ahaan UN hadday ahaan international hadday ahaan local iyo dhammaan baatanaas ka shaqeeya materialkana waxaan u baaqayn ayagana doorkooda qaataan aad u mahadsantiin